السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي kusoo dhawaada kanaalkeena sucaad cunto karin insha allahu tacaala mawduuceena waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka ay leedahay dhirta loo yaqaano sinjibiisha fadlan hadday tahay markaa kuugu horeysay ama soo booqato subscribe like share hadday aad ka mid tahay asxaabteena fadlan like share si uu muuqaalkan u gaaro inta u baahan oo uu faa'iido u yahay haddaba haddii aan si kooban uga hadalno faa'iidooyinka ee leedahay sanjabiisha waxay daawo u tahay wax loo yaqaano xanuunka macaanka ama sokorta sidoo kale waxay daawo u tahay gaaska caloosha gala sidoo kale waxay daawo rasmi u tahay wax loo yaqaano hergabka iyo dhaxanta waxa ayna qayb ka qaadataa in caafimaadka wadnaha uu sare u kaco iyada oo dilaysa wax loo yaqaano dufanka kolestaroolka sidoo kale waxay ka hortagtaa unugyada kansarka waxayna muhiim jiddan u tahay ama boqolkiiba 90 la dhihi karo islamarkaana la xaqiijiyey dhimista miisaanka sanjabiisha waxay sidoo kale faa'iido u leedahay bixinta timaha ama korinta timaha sidoo kale waxa ay sanjabiisha boqolkiiba 85 ay sare u qaadaa wax loo yaqaano dhalaalka maqaarka haddaba mid ayaan u geli doonaa faa'iidooyinkaas haddaba waxaan gudaha u gelaynaa faa'iidooyinka ay leedahay sanjabiisha waxay ka mid tahay dhirta dhaqan ahaan iyo cilmi ahaanba la qirsan yahay in daawo ahaan loo isticmaali karo taariikh ahaanna muddo dheer ayaa aadanaha uu isticmaali jiray ama uu isticmaalayaa wax loo yaqaano geedka sanjabiisha haddaba mid ayaan u galaynaa faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ugu horeeya faa'iidada koowaad in ay faa'iido caafimaad u leedahay macaanka ama sonkorta daraasad caafimaad oo kala duwan ayaa dadka macaanka qaba kula talinaya in ay cabitaan ahaan u isticmaalaan sanjabiisha kadib markii la ogaaday in koob sanjabiil karsan oo subaxdii la cabaa uu hoos u dhigo heerka macaanka dhiigga ku jira haddaba faa'iidadii labaad waxa ay leedahay ama ay tahay sanjabiisha in ay caafimaad ahaan u fiican tahay gaaska caloosha sanjabiisha waxa ay awood u leedahay in caloosha ay ka saarto naqaska ama gaaska waxaana la aaminsan yahay in ay tahay geedka ugu fiican dhinaca dabiiciga taas oo khalkhalka caloosha ku yimaada ka saarta sidoo kale sanjabiisha waxaa loo isticmaalaa in ay dabciso murqaha halaayadii saddexaad ama faa'iidada kale ay leedahay sanjabiisha waxaa ka mid ah in caafimaadka wadnaha ay u fiican tahay sanjabiisha waxaa loo adeegsan karaa xoojinta caafimaadka wadnaha maadaama ay yareyso heerka dufanka ee loo yaqaano kolestaroolka dhiigga ku jira kaas oo khatar ku ah wadnaha xididdada dhiigga iyo guud ahaanba caafimaadka qofka sidoo kale sanjabiisha waxay ka hortagtaa xinjirowga dhiigga taas oo ka dhigaysa hormuudka dhirta iyo caleenta kala duwan ee caawiya xoojinta caafimaadka wadnaha haddaba waxaa wanaagsan mar walba in xaddi macquul ah aad isticmaasho faa'iidada kale ay leedahay sanjabiisha waxaa ka mid ah in lagu daaweeyo wax loo yaqaano hergabka sidoo kalena ay aada ugu fiican tahay ka hortagga dhaxanta faa'iidooyinka caafimaad ee sanjabiisha waxaa ka mid ah inay xoojiso habdhiska difaaca ee qofka sanjabiisha waxa ay badisaa dhidid badan oo qofka ka yimaadana waxa uu ka mid yahay dawooyinka dabiiciga ah ee qabowga iyo hergabka faa'iidada kale ee leedahay sanjabiisha waxaa ka mid ah ka hortagga kansarka cilmi baaris ay samaysay xarun kansarka ka shaqeysa oo ka tirsan jaamacadda michigan ee dalka mareykanka ayaa lagu ogaaday in sanjabiisha budada ah ay disho unugyada kansarka ee gala ugxanta dhalmada daraasado kalena waxa ay daafureen in sanjabiisha ay si weyn u curyaamiso koritaanka unugyada kansarka ee mandhicirada dhinaca kalena waxa ay khubarada isku daweynta dhirta caddeeyeen in sanjabiisha loo isticmaali karo daweynta caabuqa xubnaha lafdhabarta oo saliidda sanjabiisha lagu duugana waxa ay caawisaa in xanuunka uu ka yaraado qofka faa'iidooyinka ay leedahay sanjabiisha waxaa ka mid ah in ay miisaanka qofka hoos u dhinto cilmi baaris ay sameeyeen xeldheerayaal ka tirsan macadka nafaqaynta jirka
oo hoostaga jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in qofka marka uu koob biyo qandaca uu ku darsado shintibiisha ay ka hortagi doonto in qofka uu dareemo wax loo yaqaano baahi, taas oo ka dhigan in jirka uu isticmaali doono dhammaan dufanka ku kaydsan, taa oo qayb ka qaadan doonto in qofka miisaankiisa uu hoos u dhaco. Faa'iidada kale ee leedahay sanjabiisha waxaa ka mid ah in ay bixiso ama ay caawiso timaha. Waxa ayna kordhisaa wareegga dhiigga ee gaaraya madaxa, taas oo sababta in tinta ay si fiican u baxdo. Waxa ay tayeysaa awoodna ay siisaa, isla markaana nafaqa tinta ay ka heshaa wax loo yaqaano saliidda sanjabiisha. Faa'iidada u dambeysa ee sanjabiisha ay leedahay ayaa waxaa ka mid ah in ay sanjabiisha ilaaliso wax loo yaqaano dhalaalka maqaarka. Sanjabiisha waxa ay qofka u ilaalisaa muuqaalka dhalinyarnimo, maqaarkiisana waxay ka dhigtaa mid dhalinyaro ah. Ugu dambeyntii, sanjabiisha waxa ay ka hortagtaa findoobka, waxa ayna nadiifisaa bakteeriyada keento. Fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay la wadaag asxaabtaada, like, share, mahadsanidin.